sidii farmaajo go'aan uu ka gaaro oo Kenya sideedaba leena ka mamnuuco annagu qaadka mirooga ma rabno dawladda Kenya qaadkeedii iyo qashinkeedii ma rabno waxaan aaminsanahay in uu yahay masiibo 5 sano farmaajo gacmaha hayay in ooda laga soo qaaday baan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed baa ka nastay aqaalihii baa ka nastay dhalinyaradii baa ka nastay ummadii baa ka nastay waxa weeye daroogo iyo balaayo محمد عبد الله فرماتش 5 سنة dalka uu ka mamnuucay oo laga nastay oo dhaqaalihii iyo ummadiiba ay ka nasteen ayaa madaxweynaha cusub oo ooda ka soo qaaday anaga dareenkeena waxa weeye anaga ma doonayno in qaadka mirooga dib loo fasaxo sababtay tahay caafimaad badan baa laga helay dad badan baa macnaha waxa weeye xaasil ku noqday waxa weeye xaasas badan iyo macnaha caruur badan baa dib u soo noqday waxaan dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa inaan qaad nagu soo deynin qaadku waa dulli ummaddu dulleeyay dawladda Kenya qaadkeedii iyo qashinkeedii ma rabno maanta ibrina ma rabno dawladda waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qaadkii nagu soo fasaxay saxabo naw qaadka mirooga ma rabno wax danina nagu ma jiraanin waxaan ka shaqaysanaa qaad qabow qaad lacagtiisu jaban tahay annaga nafaacinoo leh waxa weeye annagu aan wax ka helno qaadka mirooga wuxuu nagu keenaa khasaarooyin badan dhaqaale burbur annagoo nala xirxiro annagoo waxba ka faa'iidin daymankiisoo nagu go'a waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliya inaan naga daysaanin qaadka mirooga annaga ma rabno qaadka mirooga diyaar ma nihin ma doonayno maqsar weeye jeelka lagu xareeyaa annagu waxaan sanaa hareeri qabow oo ku deganaa ku qabowna lacag uma yeelato ma doonayno ma rabno annagu waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu naga cesho qaadka diyaar ma nihin mana doonayno marka inaan wariga la fasaxin madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inuu soo day sidii farmaajo kale anu hadda waxaan jiraa 60 iyo waxba ay dheer anoo 20 sano jiraan mirow gale xamar baan ka gala siinay meel la yiraahdan ka gala ilaa qabti xamar ka dhacday iyo ilaa salan jaad baan gadaya mirow dibkiisa iyo dheeftiisa waa isleegtaa laakiin waxaan ka codsanayaa federaalka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud inuu nagu soo dayn mirow oo uu nagu soo dayn baan mar iyo 2 iyo 3 iyo 4 baleeya Soomaaliya la riday muddo dheerna waxa kale oo jiray cudur la yiraahdo COVID-19 oo wadanka oo dhan kala xiray isaguna afa wadanka naf iyo maalba gaadhay buu noqday annagu ardayda dugsiga Alhuda waxaan sheegaynaa inaan rabin qaadka mirooga mar rabno uurkiyaad